السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتي سود هذا كسود هذا مركلة إيو أكاديمية بولشو دولاي هذا ما أنت وحنا بالله بأنها كورس عصب كورس كاسي أنا وطلق الله إن أنا هالكان كسوقت بالنو كورس هذا وفيديو إديتين وأنا سوفت وير كابكات هدي أو حكنا أنا كابكات وفيديو إديتين كاس أو وطلق الله إن لو استعماله iOS كا يصير كل أندرويد كا sidoo kale desktop ama computer ka sida hadda 10 kana qaadanayno kala ayadana waa ku isticmaali kartaa marka waa CapCut waa video editing software waaye kaas oo ah mid aad u fudud waxyaabo badan template iyo effect aad ku xiiso galiyaan leh CapCut waa mid kamid ah software-rada muddooyinkan dambe lagu isticmaalka badan yahay waana muhiim markasta maadaama dadka ama dhalinyarada xilligan ay mararka qaar u badan yihiin mobilada isla markaana mar walba aysan isticmaalin kombiyuutarada waxaa fududaatay in CapCut uu noqdo software-ka lagu isticmaalka badan yahay xilliga hadda la taagan yahay oo personal video editing waaye oo waa shakhsi ah inuu qofka asaga ugu shaqeysto ama wax ugu edit gareysto marka company ahaan la joogo ama company-yaasha waaweyn iyo wax marka loo shaqeynayo kale inta badan waxaa la isticmaalaa software-rada Premiere Pro, After Effects iyo kuwaas qaar kale badan laakiin personal ahaan ama si khaas ah marka wax ugu edit gareysanaysid waxaa muhiim ah inaad isticmaashid CapCut oo ku suurtagelinaya inaad ku isticmaashid mobile-kaaga iyo sidoo kale computer-kaaga marka si aad wax badan uga faa'iideen casharadan ama course-dan waxaan ugu talagalay in aan halkan ku soo gudbino haddii la yiraahdo casharkeenan waa international sidoo kale waxaan sameyn doonaa installation-ka ama habka lagu shubto computer-ka laba nooc baa u soo diisan kartaa in aad qaybtan aad tagtid oo ku qortid waxa la dhaho Microsoft Store ina Microsoft Store ku qortid waa kana oo halkan aad tagtid kadibna halkan oo kale ayuu ku soo saaraya oo ah store-kii ama macnaha waxa la jiray meelihii wax ka suqaysanayeen hadii wax kasta aan soo degeysato oo kan halkan ku qoriyeen meeshaan marka ku qoraysaa CapCut ayaa ku qoraysaa CapCut marka ku qortid waa kana CapCut editing video editing kala ku jiro waliba video editing max movie maxaa la jiray film fourth waxyaabahaas oo dhan ku jiro xataa wadi share ku jiro AI ah inta kala soo deey kartaa waa kana inta imaanaysa kadibna waxa leedahay hadii hadda aku dhifto waa kana hadda anigu ugu jira installed wala adigu hadhow wuxuu ku dhigi doonaa get ayuu ku dhigi doonaa si kan oo kale waa kana get ayuu ku dhigi doonaa marka kadibna waa ku shubanaysaa computer-kaaga ama ba sidoo kale waxa sameyn kartaa qaybtan ay wax ku qori kartaa CapCut video editing ay dhigi kartaa kadibna linkiga ugu horeeyo oo ah all in one waa kana halkan ay kala soo deysay download ayaa leedahay labadaba waa sameyn kartaa inta marka ay maatid waa kana marka double click ay leedahay kadibna waxa leedahay yes marka yes dhayd xogaa location-ka iyo waxa badan lagu raadinaya xogaa ayuu marka uu wadaa ilaa 100 marka waa iska sugeynaa ama soo laabanayna si uu muuqaalkan u dheeraanin hadda soo jeedid waa kana halkan ayuu keenay computer-kaada hadda CapCut waa uu ran gareyn kara ayaa lagu dhahay kadibna confirm aan leedahay kadibna marka confirm dhayd halkan ayuu ku keeni doonaa halkan marka uu ku keeno meeshan waa face-kii ama waa interface-kii hore macnaha maxaa la jiray waxaan gelinaynaa anaga marka hadda email-keena ayaa halkan gelinaynaa okay email-keena ayaa halkan gelinaynaa sign in ayaa leenahay okay email-kaada ayaa gelinaysaa daqadan ku furan waa iska soo gareynaysaa marka waa kana hadda halkan ayaa joogtaa marka oo waa kana hadda aan waxa ugu jira email-kaasi meesha marka waxa waaye waa hadda aan wax project wali ma sameyn uu cusub yahay halkan ma computer-ka hadda marka uu aan ku shubo waaye shaqo kuma qaban macnaha marka zero project waa wax kuma diyaarin wali hadii marka halkan ay maatid qayb settings-ka oo arki doona qaybna macnaha maxaa la jiray waa new project iyo casharka kala qayb goona ay ka qaadan doonaa laakiin waxaan rabnaa hadda qaybta settings-ka inaan ka soo saxno inta aan project-yana aan u gudbin okay waxaan tagaynaa qaybta settings-ka ay tagaynaa kadibna waxaan ka dooranaynaa settings okay settings ma ka doorno halkan waa halka aan rabnaa inaan markasta aan saxno meeshaan waxa ku jiro drive iyo edit iyo sidoo kale performance language notification marka inta ka isticmaali karno okay drive-teen aan joogno
كدبنا هالكان وحواي وسيف وانت بدل ماشي وحلو سيف جري اوكي marka wax macnaha maxaa jiri save grade oo kale halkaan waa download ka aydan waa download files kama ka download files kaada meesha tagi doona waa kana waxay tagi doonaan app macnaha local CapCut user data cloud files halkaas ay tagi doonaan marka aad wax soo dejisatid macnaha shay soo dejisatid qaybta ka jiga waxa ku qoraysaa don't delete ayaa saaraysaa inta waxa waaye waa save as preset save path ka waaye aydan hada kaliya ku dhayd وكنا وماشي برستيسكا iyo waxyaabaha soo dejista ama ku shubad ay ku macnaha ay ku gali lahayn okay qaybta edit ka daayimaatid inta marka tantankeeda asaga dhaafaysa oo justify looga image duration ka oo jeeda asagana qaybta la furaysa waxa ka dooranaysa status ay ku jirto waay meeshaan waa iska 5 waay qaybtan target load kan hadii aad furtay ayadana kalna default ku ahaado maxaa li jiray arrange layer kan معناها can be recorded in every new project by default okay tiktok وصارناته باش 30 فريم كنت 25 فريم وكدي كرتا دارتا دك 30 فريم ku dhaafo qaybta time code ka laba xabaa ku jirto midka koro ayaa fiican kaas koro qaado macnaha hal diri sunday notification kan waa iska dhaafaysa okay hadaatan macnaha waa saara kartaa ayadana marka uu shaqada dhameeyo export uu dhameeyo kale macnaha codka ku siiyo waaye qaybta performance ga imo labadan oo maxaa jiray speed iyo hardware ka tigtiga saaray labadan hardware ka iyo decoding ka midkan oo render interface kana asana waxa waay tiga saaray maxaa jiray intaan kala hadda waxa ka bedelaysid siisa ku daynaysa hada kan oo kale macnaha waa meeshii adartid waa promote save ka waay okay inta kala waxa ka bedelaysid sida ku dhaafaysa kadibna waxaan kale waa iska language-ka waxa ka dhigaysaa English aan saaran kadib marka waxaad ka samaynaysaa save alaysa waa save gareynaysaa xogteeni sidaas ay save ku noqotay waxaan rajaynayaa marka intaas inaan ku soo gabagabeyno cashirkeeni koobaad aan kaga hadlaynay CapCut-ka iyo sidoo kale qaabka loo soo dejisto iyo qaabka installation lagu sameeyo anagoo isticmaalayno computer-keena marka tan inta kulmi doono cashiradeena xigo waxa idin ku dhaafayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh